kulan ay dibadjood ka ahaayeen saxaafadda oo maanta magaalada Dhuusmareeb ku dhaxmaray hoggaanka Ahlu Sunna iyo madaxweyne Maxamed Cabdullaahi Farmaajo ayaa ku soo dhamaaday isfaham waa kadib markii sida la sheegay madaxweyne Farmaajo ka beediday qaar kamid ah inuu aqbalo qodobadii ay soo hordhigeen hoggaanka sare ee Ahlu Sunna. Radio Kulmiya ayaa xog ku heshay in Ahlu Sunna ay madaxweyne Farmaajo ka dalbadeen qodobo ay kamid yihiin in darajooyinka dhiman ee ciidanka Ahlu Sunna la dhameystiro, in xubnaha ay ku yeeshaan Ahlu Sunna gudiga doorashada Galmudug, in wax wada hadal dambe aysan ka galin 30 xildhibaan ee la sheegay inay Ahlu Sunna ku yeelanayaan baarlamaanka cusub ee Galmudug, iyo in dhaqaale la sheegay Ahlu Sunna ay dawladda kula heshiiso hore kolkii hore dib loo siiyo. madaxweyne Maxamed Cabdullaahi Farmaajo ayaa la sheegay inuu ogolaaday in Ahlu Sunna la siiyo lacagtii hore looga balan qaaday loona dhameystiro darajooyinka dhiman ee ciidanka Ahlu Sunna, balse waxa uu diiday laba qodob oo kamid ah qodobadii afarta ahaa ee ay hordhigeen madaxweyne Maxamed Cabdullaahi Farmaajo. madaxweynaha ayaa qodobadii uu diiday waxaa kamid ah in loo madax banaaneeyay Ahlu Sunna 30 xildhibaan ay ku yeelanayaan baarlamaanka cusub ee Galmudug, iyo in sidoo kale ay xubno ku yeeshaan gudiga doorashooyinka Galmudug. wararkii ugu dambeeyay ee Radio Kulmiya heshay waxay sheegayaan in kulankii ay yeesheen Ahlu Sunna iyo madaxweyne Maxamed Cabdullaahi Farmaajo uu qaar kamid ah qodobadii la isku fahmi waayay, sidaasina qaar kamid ah qodobadii natiijo aan ay ku soo dhamaadeen. intaasi kadib madaxweyne Maxamed Cabdullaahi Farmaajo ayaa galinkii dambe ee maanta dib ugu soo laabtay magaalada caasimadda ee Muqdisho.